السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعانو ونكسر دلنيرو يميلو لبعد جوكتان كنا سودوادا مركلي برامجكي كولا كدلنيرada barnaamijka kulanka dhalinyarada waa barnaamij maalinlaha isla markaana maalin walba ka dhagaysataan aalada YouTube-ka iyo waliba baraha Facebook-ga. waa maalinimo jimco ah, taariikhduna waa ku aastaysan tahay 21 Oktoobar sanada 2016. dhagaystayaal jimco walba barnaamijka waxaad ku dhagaysataan xubintii fanka iyo fanaanka. maantana barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa guud ahaan taariikh nololeedka Faxiya Macdaw Farxi Fiska oo qayb ka ah fanaaniintii Soomaaliyeed. waana markale fanaan waana markale barnaamijka kulanka dhalinyarada. hasaatee barnaamijka laaba dhalinyaro waxdaa kaga roganaa mid kamid a kaalmaha sugaanta. waxaan idin soo qabtaa si ay ku wada luuqanayaan darmalyaro iyo fartuun mid kamid a heesahooda dhegeysi wacan.
waa hagaaga dhalinyaro heestaasi dhegihii kasii guuxisa waxay daafuru ahayd barnaamijkii kulanka dhalinyarada sidaan hore idinkugu sheegana maanta barnaamijka guud ahaan waxaa kaga hadli doonaa taariikh nololeedka farxiya fiiska. fanaanada farxiya axmed cadaaba farxiya fiiska waxa ay ku dhalatay magaalada wabxo ee qiyaas ahaan 60 kilomitir u jirta degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud. waxa ay iyadoo yar soo gashay wadanka talyaaniga ayna markaa dambe kaga gudubtay wadankaasi ingiriiska gaar ahaan magaalada london ee haatan ku nooshahay. farxiya axmed cadaaba farxiya fiiska ayaa noqotay boqoradii codkii sanadii tagtay ee 2010 iyadoo markaa ay u codeeyeen guud ahaanba bulshaweynta soomaaliyeed. farxiya fiiska oo ilaahay ku manaystay cod iyo luuq aada u macaan ayaa heestiidii ugu horeysay isla markaan kusoo shacbaxday ahayd heestii seed iyo calaf ay isla qaadayaan fanaanka diini cagos. masraxii ugu horeeyey oo ay hees ka qaaday farxiya fiiska waxaa ku casuumay fanaanada weyn ee maryam mursal ciise bootaan iyadoo markaa fiiska jeclaysatay in ay dib u soo qaado hees ay hore ugula luuqeysay isla maraantaan hore u lahayd maryam mursal. inta badan heesaha fiiska waxa uu sameeyey abwaan siciid sheekh abubakar jiir oo alaaba abwaanka isku hoola sidii oo u gacan qabo lahaa isla maraantaana heese cusub iyo laxmo cusub ugula sameyn lahaa dhalinta markaa fanka ku cusub isla maraantaana soo shaabaxeedo. fanaanada farxiya fiiska weli fankeedii fara kama qodna ee weli waxay dadaal iyo xusul dub ugula jirtaa sidii ee markaasiiti fankeeda u horumari lahayd mustaqbalka dhow iyo weliba mustaqbalka dheer. waa hagaag dhalinyaro guud ahaan hal intaa ayaa jeclaa inaa kusoo gabagabeeyo taariikh nololeedkii oo koobnaa farxiya axmed cadaaba farxiya fiiska oo maanta kusoo qaadanay barnaamijkii dhalinyarada tan inta barnaamij caankan oo kale ku kulmeen waa cabdiqaadir cali caraaye hoodina sidaas iyo nabadgelyo. waxaan idinkaa ka tagaya mid kamid heesa oo ku dhuuqeeyo mursal muuse dhegis wacan.